الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم ولا الله سومالي ملت جوجتان بإله سبحانه وتعالى يكون ما يلو عدي لبندبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت بهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت دمتي الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستا أننا الله نوغدب نحرستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. Maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob. Qodobka koowaad dani oo hadlay oo khudbad jeediyey kelmadaan ka oranaya. Qodobka labaad culimada reer Somaliland iyagana kelmad baan ka oranaya. Dani wuu hadlay wuxuu ka sheekeeyey sheeko dheer buu akhriyey laakiin asnin Puntlander ah reer Puntland oday ah wadaad ah ummadaas halkaa degtana waxgaradkoodii ka mid a waxaan Soomaali u cadaynayaa inuusan nagu matelin siyaasad iyo maqaam aanu leenahay haddaan nahay reer Puntland oo aanu ku leenahay ummadda Soomaaliyeed iyo halgankeeda iyo midnimadeeda iyo xornimadeeda iyo qaybtaan ku lahayn ummadda Soomaaliyeed dawlad dhiskeeda inuusan dan nagu matelin baan horta cadaynaya. Waxaan cadaynayaa cidda lagu matashaa inay tahay isimadii ka hadlay Puntland kuwii Garowe ka hadlay boqorka garaadka culimadii reer Puntland oo cadeeyay oo bayaaniyay Soomaali meesha ay reer Puntland kaga jirto dhismihii Puntland raggii iska lahaa aragtidoodii iyo mowqifkii ay qaateen oo ay dhexgeliyeen dastuurka oo ahaa Puntland waxay ka mid tahay Soomaaliyana waa hal mid lamana kala goyn karo nuguma matala dani waxa uu sameeyay inuu hadeer isku dayo inuu isdaad raaciyo 2 wiig iyo maalin kadib markii ay Israa'iil ku soo duushay Soomaaliya sababta kaliftay hadda inuu hadlana ay tahay Saudi Arabia isbedelka ay ku samaysay jawigii oo dhan iyo siyaasadii oo dhan intii ka horeysay Soomaali baa tiin ilowshaha idinku badan sida umushi baa degdeg wax u ilowdaan balaan recap idinku samay dib aan idin xusuusiyo iyadoo aan wali soo shaac bixin baa waxaan idin sheegay dani iyo Israa'iil la isugu geeyay Imaaraadka in la yiri Israaca oo isla shaqeeya ma aragteen oo idin ku aragteen waxa dhacday shir bay ku qabteen Nairobi wasiirada dani iyo wasiirada Ciro kuwa Ciro waxay yiraahdeen reer Puntland waxay nagala shaqeynayaan go'no reer Puntland waxay damceen inay ka jawaabaan oo hadal mala'aan macna lahayn oo ahaano kama wada hadal SSC khaatumo iyo waqooyi bari gobolka waqooyi bari arrimihiisa kama ana wada hadlin midnimada in la wada amnigan ka wada hadalnay iyo in la wada shaqeeyo iyama kadib waxa aragteen juha oo wasiirka arrimaha gudaha oo dani u ah oo leh Puntland Somaliland waxay xaq u leedahay inay aayaheeda ka tashato waxaad aragteen oo kale ciyaaladii qaaqlayaasha ahaa iyo kuwa wariyaasha isku sheego oo lacagta siiyo oo kulligood u niikinaya Somaliland inay go'do inay raali ka yihiin intaas oo dhan way xasuusinay shir bay ku wada qabsadeen Ciro iyo dani magaalada la yiraahdo Nairobi kadib waxaa aragteen shirki ka dhacay Cerigaabo Ciro isaga idin sheegay dani hadduusan igala shaqeyn kharashkana bixin shirkaan ma qabsoomeen shirku muxuu ahaa annaga iyo Puntland looma dhaxeeyo macnaheedu maxay ahayd Ciro wuxuu sheegay xuduudoodii inuu ilaashanayo xuduuddu waa Garowe bartankeeda iyo Boosaaso kama uusan hadlin bal iska dhaafay waxaan idin sheegay in loo soo bandhigay in loo jaro inuu horta Puntland ku inay taageerto Somaliland inay go'do isagu hadduu rabo inuu raacana in loo jarayo inuu aad u farxay oo gees ilaa gees qoslay baa idin sheegay waxaan idin sheegay oo idin cadeeyay markii ay dhacday qadiyadii Israa'iil duulaankeedii ay dalka ku soo qaatay inuusan kalmad ka oran karin iska dhaafe aydiid oo si iska fudud u hadlay oo midnimada ka hadlay oo Xasan Sheekh saw ay midnimada dalka yiri Soomaaliya waa mid waxa lagu amray inuu dib uga laabto oo yiraahdo anay cidna kuma matalo laakiin jo xalama dhihin ka noqo عيديد كانوا قال لي عيالدينا waa lagu soo fasaxay
beerkay kala baxeen laakiin juxa lama oran ku laabo hadalkaa ku laabo intaasoo dhan waxaa raacda oo la socota ciyaaladiisii iyo kuwa qabyaalad ku taageero oo rag iyo dumar isugu jiro 24 saac dadka caaya aad aragteen maanta wuxuu yiri iguma matashaan cayda ninkii cid caaya isagay u taala baska hoostiisa ku tuuray kolley waa kuwa aan damiir lahayn maadaama uusan qiyam jirin iyo aragti qofka muslimka ah waa inuu qiyam leeyahay waa inuu aragti leeyahay waa in hadday baddu buuraha talawdo lagugu yimaadaa wixii lagugu ogaa waa inaadan ka tanaasulin oo aadan tasacsuc lahayn oo aan hadba dabayshu dhinac kaaga dhufan oo siyaasigu uusan maalinba meel kuu kaxaysan oo aadan iska dabagelin saacad boolay aadan noqon kolley haddana iyagoo waxaad arki doontaa kuwa shalay lahaa dagaalaan hurinaynaayo hawiye daarood baa diriri doona xasan baa ku duulaynaa oo waxaad arki doontaan hor ordaayo oo haddana leh midnimadaan rabnaa midnimada waad arki doontaan ilaan dad maaha jira waa igu shubo iyo tola'ay labadaas mowqif mabda maaha maalinba meel daran bay kaala dhacaysaa siyaasigu waa ishiqaate waa dantii eegte ma liibaanayaashii lagu liibaanay buu ka dhigay baska hoostiisuna ku tuuray wuxuu yidhi mustaqbalka hadalla xunxun hadda aa ku hadashayaan lagu horkeenin hadalka iska hagaajiya kuwiina wax falanqeeya waxaa ka mid ah hadalkiisa xuduudda iyada waa la yaqaan oo shalay markay sheeganayaan maa ka jawaabtid ciro wuxuu ka sheegay wasiiradiisii markii ay israa'iil tiri waan ku ictiraafay oo uu shirka la qabsaday wasiiradiisa wuxuu ka dhex sheegay in arrintan ay suurto gashay kadib markii dani aad ugala shaqeeyey ciraa sheegay publicly u sheegay maxay tahay midnimada hadda uu ka sheekeynay wuxuu kaloo noo sheegay oo khudbadiisa ku sheegay dhibaatooyin ka jira puntland oo uu yiri warba kama hayo caafimaadkii waa baaba hadda ka hor baan idiin sheegay wasiirada maalintuu doortaa ugu dambaysa maxaa yahay dowladnimo iyo hoggaan midna umana samaysna aqoonteediina ma laha garaad ilaahay siiyey oo uu ku maamuli karana ma laha wasiir baa wuxuu igu yiri hadda ka hor isagoo weliba aad u difaacay isagoo intaanu doodnay buu wuxuu igu yiri wallahi waa runtaa maalintuu i doorta ay igu dambaysay waxaad raadinaysaa buu yiri inaad la kulantid adoo dhibaato wasaaradaha ah raba inaad uga warrantid wasaaraddaada ah markaad 2 bilood soo socotid oo soo sugaysid baad nusaac lagu siinaya hadalka markaa u bilowdid buu wuxuu ku leeyahay ii kaadi wasaaradda miyaa arrimaheeda dib baynu isaga imaanaynahay ma wax kaloo shidaa baa jira adigu soo okay ma tihid haa bas hawlaa igu taagane nabaday 30 daqiiqo 10 daqiiqo isagu uu ku hadlay maaha intii kalena waa lagu kala tegaya dan buusan ka lahayn caafimaadkiibuu yiri war kama hayo wax ka dhacay isagaa qaatay lacagtii covid-19 loogu soo dhiibay oo dhowr iyo 10 milyan oo la yiri ku dhis isbitaalada cabashada laga cabanayo wuxuu leeyahay maba ogiba war kama hayo wasaarad uu warka hayaa iska yar dan uu kala yahayna ma jirto khasnaji baa u jooga wixii soo gala isaga u ururiyaan meel bay ugu shubaan waxaan hayaa wiil 10 bilood aan mushaar qaadan oo soo wacay walaalkiis soo ii soo dir lacag 10 bilood mushaar la imasi waxaan hayaa mid yiri 7 bilood mushaar ma qaadan mid aniga afkayga aan kula hadlayna wuxuu igu yiri 4 bilood mushaar ma qaadan dadka mushaharadoodii buu haystaa fartu wuxuu noogu fiiqayaa xasan sheekh marka koowaad xasan adaa noo keenay hadduu xun yahayna adaa xun hadduu fiican yahayna waad la fiican tahay marka xasan waa tuug baa tiri xasan hadduu tuug yahay taada adigu ka war xagee geysay mushaaradii dadka maxay tahay hantidan aad ka samaysanaysid caalamka ganacsiga waaweyn oo shirkadaha kaga furatay Zambia iyo Nairobi aad kaga dhisanaysid adiga caruurahaagu aad lacagta saas u kala guraysaan oo hantida aad dhisanaysaan oo beeraha iyo geela iyo hantida aad samaysanaysaan yaa leh xagee keentay maadii ijaaba lacag watay markaa soo gasheen meesha maxaa tuug kale iigu tilmaamaysaa adigoo ka tuugsan dhulkiibuu gatay dhul aa gadataadan aqoon ee waa gadan lahayd inaan lagaa yeelayna waad ogta laakiin wax kale miyaa reebta wixii dhulka ka sarreeyay Soomaaliya qaadan ma waxa reebtay baa jira maxaa tuug kale waxa la maroodigu takarta isaga saaran ma arkee takarta kan kala saaran buu arkaa wuxuu kaloo noo sheegay oo uu yiri waxa jirta siyaasad xumo dalka ragaadisay 30 sano la soo dhaafay xabada saxda oo sheegay waxay ahayd hadda waxa ka masuula siyaasiyiinta saga kamida isagu waxa u dheer xasan kii ka horeeyay wuxuu yiri 3 sano iyo bar waxaan ka shaqeynaa kursiga ka rido 4 sano hadda la soo dhaafay xasan joogay wuxuu noo sheegay xasan inuu
baabi'iyo ka rido kursiga shaqadiisu intaasay kan ku xiga haddana haddii xasan la bedelana 4 bilood baa u haray la bedelana saasoo kale u qabsanaya maba laha aragti aan ahayn inyow aragti aan ahayn maba lahaba ra'yi ma keeni karo marka haddaanu dhahay reer puntland war ninkaasi siyaasadda lagu matalo dhib baan ugu dhacay balaaya madax nool oo ka dhigaya dadka soomaaliyeed oo noona dulqaata na suga kuwii dariska la ahaa oo shalay dhiigga iyo dhacaanka loo shubay cadow buu uga dhigay ciyaalo qaaqlayaala intuu ku salliday oo shalayna difaacayay baa maanta caayaya aragtiisu waa intaa waa aragti ku salaysan macaan dharagla maanta maxaan cunaa ku salaysan wey marka soomaaliyey hana noo qabanina waana ka soo kacaynaa insha allah waana ka baxaynaa hana la sugo soomaalida intaasaan oranayaa hana loo dulqaato ilaahay subxaana watacaala waa ina ka saaraya qodobka intaasaan ka oranaya qodobka labaad culimadii reer somaliland qaarafkooda xirtay sida dirir iyo mustafe iyo kuwo kaloo badan qaar ku qancay israa'iil ictiraafkeeda oo saf soo galay oo yiri waa taageersannahay dowladda ictiraafka soo heshayna oo ku mahadsantay iyo qaar diiday oo ka hor yimi horey waxaan idiin yiri reer somalilandow culimo waa imtixaamantihiin ilaahay mixnad buu idin soo dhex dhigay waxaana la kala caddaynayaa ilaahay ummadda u kala caddaynayaa liyamiiza allahu alkhabiitha min altayib maantoo kalaa la kala gartaa qofka wanaagsan iyo qofka dusha ka wanaagsan qofka si saxa u wanaagsan iyo qofka korka ka wanaagsan maantoo kalaa la kala gartaa qofka runta sheegaya iyo qofka waxa kan xirfad isaga noqotay maantoo kalaa la kala gartaa shiikh ilaahay ku xiran rabbina ka baqa iyo shiikh hawlo kale u dheegyihiin maantoo kalaa la kala gartaa rag waa fashilma laba nin waa diideen waa la xiray taariikhday galeen nin salafiya iyo nin suufiya maxamed weli waa xiran yahay saan maqlay ilaahay ka soo daayay sharaf iyo karaamay leeyihin taariikh bay galeen qolo dowladdooday raaceen qabyaaladooday raaceen qolona waa noo aamustay laakiin looga hari maayo aamuska marka kaleba waa idinka mikrofoonka hortaagan oo noo sheekeeye ma waxaad nooga sheekayn doontaan xayd iyo nifaas iyo weesadu waa jabtaa iyo soonkii waa buray muhiimaddii dalka iyo dadka diintoodii haddii aydinaan dan ka lahayn ama aydinaan ka hadlayn ama aad dowladda inta ka baqdaan hor ordaysaan ama aad bashidaysaan waxaad ka midaysan tihiin oo ilaa iyo hadda aana arag hal qof oo idinka mid ah oo ictiraafka ka hor yimi ma arag xataa kuwa diiday israa'iil diiday ma maqlin inay diideen ictiraaf waa hal qofna ictiraaf macnaheedu maxay tahay soomaaliya in la kala gooyo wadaad sheekh umal ayaa si fiican uga hadlay xafidahu llah waracaah si fiican ninkaas xaqii lagu lahaa waa ka gutay rag badan oo kaleoo ka hadlay oo meelo badan ka hadlayna way jiraan ma ujeeda mid waxaan arkayay marka wadaad waxaan arkayay khudba akhriyaya oo masaajid hortaagan waxaan isirigtoo maqaadku cunaa mid jadiida ah oo dheer oo la shiikhu cuqdad buu qabaa mashacab baa ninkaas kuwa meesha dee aad baa qaadka looga cunayo waa shakiya waxaan isiri talow dee wadaadaduna ma cunaan muxuu ka wadaa cuqdad buu qabaa isaga waxaa ku jira kuu sheegaya isaga waa walba jadiid u ahaa ka filimayn israa'iil salafiya almukhaabaraat baa la yidhahdaa israa'iil iyo wax ka shisheeya inay taageersan yihin waaba la ogaa oo inay taageeri doonaan waa ogaa mid waxaan arkay barbaraawi waxaan arkay waxaa la ii geli koofiyadda israa'iil ilaahay ka cabsada dadka aa leedahay diintoodii baa laga gatay oo ay ku sujuudayeen oo aakhiro danteed iyagoo le waad arkaysa ninkii ka celin lahaa baa tahay u hadli lahaa baa tahay hagaajin lahaa baa tahay hagi lahaa baa tahay ma idinkoo dhan culimooy imtixaankii waa ku dhacdeen saa u dhantihiin hal qof oo idinka mid ah oo yiri war haddaanu soomaalinahay ictiraaf waa haysanaa soomaali baanu la leenahay dowlad ictiraafna cid kale ugama baahnin kuwii laga xishoodo sanka laga qabsado caalamkao dhammi ka cararaya israa'iilna wacad allahna u hoosgelayn ilaahayna aanan kala dhimanayn oo malcuun uu ilaahay lacnaday aanan ku kala dhimanayn cid tiraahda waa laydinka waayay
اعتراف كأوبان تايم حوي مواضع اعتراف أيضا على مواضع الله كويا لا كان سيب كان صار أن سيدو يهي إيجا سرية ومنص قامي كان سيب كان صار على كي ليدين صاري سومها هيستين داخلي 1954 لغاتي و 1960 كتاكتين هرقيسة maxaa kaa maqan calankii weli wuxuu yaallaa UN-ta kursigaagii weli waa lagugu matalaa maxay tahay waxa kaa maqan ood raadinaysa I know xasan sheekh inuusan karaamo iyo sharaf midna lahayn fiizana uu ka mid yahay dhibaatooyinkan wax soo dadejiyey aad ku celceliseen kulligiin xasan tuugadaasuu ka mid yahay na qabsatay oo qaar idinla joogo lacag buu ka fiirinaya caruurihiisa iyo hataa hadduu si fiican oo dowladnimo iyo uu samayn lahaa dadku dacwo kama qabeen and I know that laakiin taasi ma keeni karto mana kalifi karto dalkaanu ka go'ayna dhibka dadka la qabtaan meel kasto ay joogaan dhibkaas waa wada qabaan dadku waa wada marayeen wax idinku gaara ma jiraan waxa tiraadeen dhibaata waana loo geystay konton dhibaato ka dambaysaad idinku geysateen kuwaad hadeer ku soo la soo qarqaraysaan cirro markuu calanka markuu maapka qabanayo oo uu garowga iyo boosaaso sheeganayo soo dagaal maaha waxa uu ku baaqayo soo maaha idinku inaad soo wadaan colaad soo hadda maadaama aad dhulkoodii sheegateen dadka aad gobolladaas degan ood xoog ku sheeganaysaan soo inay idin yimaadaan oo idinla diriraan xaq uma leh soo masaa'ibtayna ku wada dhacday idinkuna qayb kama aydin cid kastaana qayb kama ah maxaa idinku gaara waxba culimooy waa fashilanteen haddaad tihiin culimadii gobollada ka soo jeeday waad fashilanteen ilaahay u toobad keena rabbi subxaana wa tacaala u noqda ilaahay u noqda tolkaa mowqifka khaldan laguma raaco dani baa aniga tolkee kuma raacsani iguma matalo kuma waafaqsani hadduu dhaho waa goosanayaa waa ka soo horjeensanayaa life baan u imaanayaa dadka ku kacaya oo meesha ka saarayaan ka mid ah ma ujeeda maxaad adigu kaagii u hor ordaysaa maxaad u aamusan tahay maxaad dhabarkiisa uga soo hadlaysaa maxaad u difaacaysaa maxaad diintaada u iibsanaysaa sida cabdullaahi baashi kursi yar siistay oo iyaga ay sheegayaan waa boqor buur madow baa ku niikinaya buur madow oo isagu mooryaan baa ku niikinaya oo leh kaasu wixii aanu keennaba ayad iyo xadiis buu u helayaa markaan idin lahaa wadaadow siyaasadda hormuud ka noqda haddaba gelinine hormuud ka noqda musiibadaasaan idinka baqayay ma haysaan waxaan ka hadlayay maanta gacantaba ku haysaan wadaadow gacantaba ku haysaan hadeer isdaba qabta shaydaanul carab waa la cayrshay wuuna ina ka baxaya sida la sheegayo alaabtiisa buu urursanaya wuu ina ka bixi doonaa markuu ina ka baxo wadaadow tani mid aad geydaan maaha meel aad joogtaanba ma geydaan inaad raciyad noqotaan ee waxaad geydaan booska aad leedihiin aad timaadaan mowqifka aad leedihiin inaad qaadataan inaad dalkiina iyo diintiina iyo difaacataan falastiin waxaa ka mid ah hadalladii ay akhriyayeen shacbaan iyo kuwa lamid ah ina cali warsameeyo oo Myanmar dadka ku leeyahay Soomaaliya heshiis bay la tahay Chinese ka heshiis la tahay waxay la tahay heshiis wadamo xasuuq geysta maxay Israa'iil kaga duwan tahay Israa'iil muqaddasaadkii muslimiinta haysataa awqaaftii weeye masjidkii saddexaad laa tushaddu rixaalu إلا إلى 3 مساجد ويرى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بحيثتها قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى بحيثتها قبلة الأنبياء والرسل بحيثتها دول كاس وقف كاوض وحكولها بحي بحيثتها وحادير مسلمين بيلاده هاي جبي أهم بوحجرمها هورتينا كتري الرأي هورتيسا كتري virtual government way دولة فلسطين وحجرمها لكن إذا كنت دولة ترتاتين بيدين بين تاسي هورتينا كشكت بeentaa weeye waa ku dhici weydeen maca allah kugu taale ilaahay kuwa lacnaday baa tahay falastiin dhulkeeda ay leedahay adigaan jirin intaa waa dhihi kari weydeen waxaa laydinku sabay oo laydinku sabay been laydin sheego kuwa miidiyaha ku jira loo qaybiyo layru sheega ku celceliya ictiraafka hadda soo dhacaya dowlad kala soo raacaysa saacada kadib buu soo dhacaya maalmo kadib buu imaanaya khalaas 30 sano been ay idinku wadaan bay heleen 30 sano dowlad ictiraafsan cirro hadlaya dowlad hadda la yaqaan oo ictiraafsan yahay baan ياكو اعترافسن حاجه لها اعترافسن اسرائيل وسنك لغا هيستو بعد هوسغش وانا عيبيسن داركان naga dhigtay waan qaawisen adduunkii baan mari laana oo leey maxay idin ka khaldan Soomaalida waxaan u qabnay waalidad balaa ilaa waa ka hadli jirnay arabta ma soo rifi jirin waxa maxay idin ku dhacay markaas waxaan dhigay war waa xoogaa kharibano
وانو شقين لا حوغا خريبان ورقف عالم كسجودي هوري لوما arag yahuudeed على yahuudeed oo laga saaray magaalada bartankeedii laga daaray isagoo nal ah hore looma arag wadamo badan baa heshiis la galay waxa kale oo idinku khatimayaa horta waxaas iska baaba'ayaan oo iska tagayaan baraanki buu ahaa horaan idinku sheegay shaydaan arabna carar israa'iilna hadii mar aan la joogi karin eriyada yamanna laga saaray suqadarana laga saaray meesha ay u soo socotay oo ay rabtay inay ka maamulato yaman uga maarmi mayso marka iyadaaba iska tegi doonto iska qulqulaysa waa la dooganayaa la dacaroon yaa la fogaan dad badan waxaa jira shacaba qaar ila soo xiriiraya aqoonyahan iyo khubarada leh oo aan raalli kahayn waxaana rabin in badan oo ka mid yihiin sarkhaan baa moodaa inay yihiin oo 35 sano beenta lagu akhriyay dadkuna waa dhalinyaro wax ka horreeyayna maba xasuustaan mana yaqaaniin qofkii 45 ilaa 50 jira dowladdii horena waxba kama xasuusto wixii ka dambeeyana been baa lagu waday marka inuu iska aqbalo waa run muxuu kaloo garanayaa oo arki karaa waa run laakiin in badan oo ka mid ah oo ka soo horjeedaa jirta waxaan waana laga baxayaa insha allahu tacaala dalka iyo midnimadiisana waa la difaacayaa waana la ilaalinayaa safarka uu xasan sheekh maxamuud ku imaanaya laascaanoodna dani iyo kooxdiisu hadday caayayeen caydiid baa caayayay caydiid wuxuu sheego aan looga daba imaan waa wax dani rabo oo maxaa u caayaysa haddaa midnimada aaminsan tahay runtaa tahay midnimu u imaanayaa gobolladaas